maamulka gobolka Saraar iyo kan degmada Caynaba madaxda wasaaradda caafimaadka ee gobolada bariga Soomaaliland iyo hay'adda Kobi ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay isbitaalka Timbid ee magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar. munaasabaddan in lagu dhagax dhigay isbitaalka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa isduwaca wasaaradda caafimaadka gobolada bariga Soomaaliland Dr. Cabdi Yaasiin barasaabka xigeenka gobolka Saraar Ibrahim Jaamac maayir xigeenka degmada Caynaba Bukar Shida Cali isduwaca wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saraar madaxda hay'adda Kobi dhakhaatiirta isbitaalka degmada Caynaba haweenka dhalinyarada iyo marti sharaf kale aad u tiro badan oo ka mid ah dadka deegaankaasi. ugu horreyn waxaa munaasabaddan ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Caynaba Bukar Shida Cali waxaanu si ballaaran ugu mahadnaqay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda Kobi. sidoo kale waxa uu tilmaamay in isbitaalkani uu wax weyn ka tiri doono baahiyaha dhanka caafimaadka ee ka jiray deegaanada gobolka Saraar. maayir ku-xigeenka degmada Caynaba Bukar Shida Cali sidoo kale waxa uu hay'adda Kobi iyo wasaaradda caafimaadka gobolada bariga Soomaaliland guddoonsi dhulkii laga dhis lahaa dhismahani qaybta caafimaadka iyo hay'adda Kobi oo uu wada gobolka Saraar isbitaalka Timbid oo aynu qabnay baahi badan oo isla ognahay ilaa iyo garada ilaa iyo Caynaba inta u dhaxaysa dadka ku nool waxa weeye waa dad u badan boqolkiiba 70 iyo 5 waa Timbid weey iyo kaliya xanuun marka boqolkiiba boqol anagu u baahan isbitaalka Timbid waxaanu halka siinay dhul dhan 40 ilaa 15 mitir Timbiga waxaanu guddoonsiinaa isduwaha isbitaalka labada gobolada bari Cabdi Yaasiin oo guddoonsiinay Kobi dhanka kale iyaguna waxaa munaasabaddan hadal ka soo jeediyay barasaabka xigeenka gobolka Saraar Ibrahim Jaamac isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saraar qaar ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka guud ee gobolka Saraar haweenka degmada Caynaba iyo dhalinyarada deegaankaasi kuwaas oo si ballaaran ugu mahadnaqay hay'adda Kobi iyo wasaaradda caafimaadka ee gobolada bariga Soomaaliland gaar ahaan isduwaha wasaaradda caafimaadka Cabdi Yaasiin oo ay tilmaameen inuu yahay mas'uul si hagarliye ugu shaqeynaya dadka deegaanada uu mas'uulka ka yahay. sidoo kale isna waxaa munaasabaddan hadal ka soo jeediyay Dr. Cabdi Yaasiin isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolada bariga Soomaaliland oo tilmaamay in isbitaalkani si weyn wax uga qaban doono dhanka arrimaha caafimaadka gaar ahaan Timbid oo tilmaamay inuu yahay xanuun si aad uga dhex muuqda deegaanada gobolka Saraar. sidoo kale Dr. Cabdi Yaasiin waxa uu si ballaaran ugu mahadnaqay hay'adda Kobi oo tilmaamay inay tahay hay'ad heliyo hoob la garab taagan wax la qabashada dadka deegaanka. maantana Caynaba wada joognaa inagoo maalin dhaweyd kala tagnay oo aynu campaign-kii xanuunada ka wada galay maanta waxaan u nimeynayno mashruuc qaaxada ah oo Timbid ah ka hirgelino gobolkan ama magaalada Caynaba waxaana kalifay runtii waxa la ogaaday isbitaalka Burco culayska saaran ee Timbid inuu ugu badan yahay gobolkan aynu joogno iyo waliba kuwa bari naga xiga Sanaag inteeda soke dadka u jiifa maanta Burco jiifa badankoodu waxay ka yimaadaan ama gobolkan Saraar iyo degmada Garada iyo Ceelafweyn xagga naga xiga waxa dhacdo dad badan markay dawada bil ama 2 bilood qaataan ee yara ladnaadaan inay xamil waayaan Burco joogitaankeeda inuu waliba ama kharashka ka go'o ama dadkiisi uu iska soo qabto oo dawadii ka yimaado halkan yimaadaan dabadna ay halka dawadii ka kala godo uu dawa xumaysto marka waxay talada noqotay in halkan looga sameeyo meel uu dawada ku dhamaysto oo uu ka qaato marka halkan baan isla garanay inaga hay'adda Kobi in laga furo xarun yaro TB marka hore la dhiso bishan soo socota ilaa ka dhigo ayuu imanaya injineerka aan soo direynaa dabadna uu halkan dhismo yar lagu bilaabo 3 qol ah iyo suuliyo dabadna marka dambana haday beeshanadu bataan waararkii wixii lagu sameeyo waxa laga yaabaa future-ka inay isbitaal weyn noqoto aynu ka guurno meel kale oo halkan ka waayacsan u guurno laakiin imika maadaama wuxuu hawshu bilow tahay maadaama isbitaalka guud aan laga maarmayno dhakhtarkii iyo shaqaale halkan laga yaabo inay garab uga baahdo biyihii iyo leerkii wixii ay magaaladii wali isku xidhan tahay waxaynu ka bilaabaynaa halkan aad baan ugu mahadnaqayaa qolada deegaanka ee dhulkan ku deeqday markiiba iyo odayaasha magaalada iyo sida loogu heelan yahay dadku inay wax qabsadaan runtii reer Caynaba bariyahan dambe way aad bay ugu wanaagsan yihiin xagga horumarka odayga magaalada inta la kaatay aad baan ugu mahadnaqaynaa anaguna waxaan ku dadaalanaa inaan la jaan qaadno caafimaadku uu la koro sida magaalada u korayso. ugu dambeyntii waxaa munaasabaddan ka hadashay mas'uul sare oo ka mid ah hay'adda Kobi taasi oo mahadnaq ballaaran u soo jeedisay Dr. Cabdi Yaasiin iyo wasaaradda caafimaadka. sidoo kale waxa ay dadka deegaanka Caynaba ugu baaqday inay ka faa'iideystaan isbitaalkan isla markaasina ay dhowraan dhismihiisa agabka dhex yaala isbitaalkani. And we were working since a long time in Somaliland and Burao. Then okay waxay ina tiri
horta dhammaantiin dee waa wada mahadsantihiin madaxda gobolka ama degmada iyo dadkiina kaleba sida uu Cabdi Yaasin bay idin sheegay hawsha dee loo socdo ee meesha maxay tahay loo socdaa waxa weeyaan taa uu dhakhtarku rabay ku sheegay hay'adan waa hay'ad Talyaaniga oo koobi magaceeda la yiraahdo hawsha caafimaadka ee maxay tahay dee burco iyo boorama iyo berbera iyo gaar ahaan TB-da ay qaabilsan tahay marka the program of TB that COP is implementing is funded by Global Fund, and in this program we have verified that the number of patients coming from Ainabo is quite important. So our IMIT kastaba ahaatee markan ayaa markii horeysay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda COPI ay si wada jira u dhagax dhigaan isbitaalka guud ee Timbeyda ee deegaanka Caynaba xilligan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli si aad loogu baahan yahay isbitaalka Timbeyda oo laga hirgeliyo deegaankaasi Axmed Hanad Gurey baqaya telefishinka caalamiga ee Bulsha TV Burco Somaliland.